Allahu akbar maanta guul ayaa curatay Soomaaliya maanta wadadii horumarka ay cagta saartay maxaad xilligan markaasi kala socotaa safaaradii Imaaraadka Carabta oo markaasi ku lahaa magaalada Muqdisho in albaabada la isugu dhuftay safiirkii Imaaraadka isaguna markaasi ku sugnaa Abu Dhabi in markaasi si degdeg ah loogu yeeray in magaalada Muqdisho uu markaasi soo gaaro xogihii ugu dambeeyay markan Soomaaliya waxay aragtay halka dawladnimadeedu markaasi looga dhagan yahay tani waxa ay markaasi noqotay fashil aad u weyn oo dhinacyadu markaasi marba marka ka sii dambeysay ay wajahayaan dadka Soomaaliyeed maanta way u kala cadaatay in marka majarahoodii dawladnimada markaasi lugaha looga dhaganaa isu taga Imaaraadka Carabta tani waxa ay markaasi noqotay mid madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud albaabada markaasi u furtay in Soomaaliya cid alla la cid markaasi horumarkeeda qarannimadeeda madax banaanideeda tafaha cid ku dhaganeed in ay markaasi tahay Imaaraadka Carabta maxaa xilligan markaasi kala socota go'aanka adag ee uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u qaatay arintan iyo waliba qorshaha xoogan ee markaasi looga golleeyahay safiirkii Imaaraadka ee Soomaaliya markaasi halka ku matalayay waxa uu markaasi soo gudbiyay oo uu soo dusiyay xogo aad u adag taas oo durbaba dhinacyo kala duwan iyagu markaasi u iftiimisay in rajo aad u wanaagsan Soomaaliya ay markan iyadu markaasi u tahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba kooxdiisa waxa ay markaasi qaateen dhabbihii horumarka dhabbihii dawladnimada qorshe culus ayay markaasi xilligan dajiyeen maamulada Puntland iyo waliba Jubbaland iyaguna markaasi xubnaha saraakiisha ee sirdoonka Imaaraadka ka socda digniintii ugu adkeyd ayay markaasi dawladda federaalka u dirtay arrintan waxa ay markaasi soo baxday kadib markii Israel ay iyadu markaasi sheegtay dhawaan inay aqoonsatay Somaliland oo ah gobol ka mid ah Soomaaliya qarannimadii Soomaaliya marnaba cid alla la cidii ku soo xadgudubta uma aabayeelina ayuu yiri sargaal sare oo ka mid ah la taliyaasha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Turkigana waxa uu markaasi noqday dawladda kaliya ee sida dhabta u garab taagan dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxa ay markaasi yiraahdeen waxa aynu markaasi garab taagannahay qarannimada madax banaanida Soomaaliya dadka Soomaaliyeedna horay waxa arrinkan markaasi Imaaraadka in uu cadow yahay u iftiimiyay madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maanta ayaynu haynaa wixii uu markaasi ka digayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayuu yiri mid ka mid ah xubnaha la taliyaasha ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dhabaha horumarka waynu ku tiigsanay dhabaha qarannimadeena iyo madax banaanideena in Soomaaliya ay markaasi isku filan tahay wax allaala wixii iyadu dan aan ugu jirinna ay diidi karto ayaynu dadka Soomaaliyeed iyo waliba caalamka u cadeynaynaa ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud midnimada in la kala dhantaalo dooni mayno hadalladaas iyo waliba kuwa adag waxa uu markaasi u adeegsaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud xubno wakiilo beesha caalamka oo qadka telefoonka siyaabo kala duwan uu markaasi ula xiriiray dawladda Turkigana waxa ay markaasi abaal weyn ay gashanaysaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba dawladda Soomaaliyeed waxa ay markaasi marba marka ka sii dambaysa dawladaha Carabta qadka telefoonka ay markaasi kula hadlaysaa oo ay leedahay waa in Soomaaliya markaasi xilligan loo shaqeeyaa lana garab istaagaa hadalladaas waxa markaasi yiri wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Turkiga Fidan ninka lagu magacaabo oo isagu saacadba saacada ka sii dambaysa ka soo muuqanaya dhinaca warbaahinta caalamka dawladda Shiinaha iyaduna waxa ay markaasi qayb ka tahay dawladaha sida weyn u garab taagan qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya waynu qaadaynaa tallaabo kasta oo Soomaaliya lagu garab istaagayo lagu difaacayo qarannimadeeda iyo waliba madax banaanideeda sidaas isaga oo wadanka Itoobiya ku sugan waxa yiri wasiirka arrimaha dibadda ee wadanka Shiinaha arrintaas markii ay soo baxday kadib dawlado badan ayaa iyagu markaasi ku dhici waayay in iyagu ay qorsheynayeen inay aqoonsadaan Somaliland oo dalka madax bannaan Soomaaliya ay u aqoonsadaan tani waxa ay markaasi noqotay mid tusaale hogleynayso oo dhinacyada tooshka ugu qabatay wadamada iyagu markaasi diidan qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya
Soomaaliya maanta way isku filan tahay haddii ay noqoto ciidan ahaan, siyaasad ahaan, amni ahaan, dhaqaale ahaan. Sidaasi waxaa yidhi la taliyaha madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dhinaca arrimaha dhaqaalaha, ninka lagu magacaabo xasan aadam hoosow, oo isagu markaasi ka hadlayay madal looga hadlaya arrimaha dhaqaalaha iyo Soomaaliya marxaladeeda dhaqaalaha xilligan ay ku sugan tahay.